فوايهسا الليل ملك وابو وينو كلا فوقان مياكو ورمي ولي فوايهسا الليل ملك وابو وينو كلا فوقان مياكو ورمي kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad dhegeysataan. barnaamijka toddobaadkan waxa aynu idinkugu soo gudbin doonaa qeybta koowaad ee wareysi dhowr qaybood ka kooban oo barnaamijkan aynu kula yeelanay doctor cabdulaahi warsame abtidoon, agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka ee galmudug. waxa uu kasoo shaqeeyey howlo kala duwan oo barnaamijkan aynu idinkugu soo gudbin doono. anigoo cabdidaahir garaad cali ah ayaa barnaamijka waayaha nolosha soo saaray, halkana idinkala socodsiinaya. cabdifataax maxamed axmed ayaa dhanka farsamada ka qaabeynaya. mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha ee raadiyaha daardheer. waa hagaag dhegeystayaal, barnaamijka waayaha nolosha sida aan hordhaca ku sheegnaba toddobaadkan waxa aynu kusoo gudbin doonaa qeybta koowaad ee wareysi dhowr xalqadood ka kooban oo barnaamijkan aan kula yeeshay doctor cabdulaahi warsame abtidoon, agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug. waxa uu soo qabtay xilal kala duwan. qiyaastii 1966 ayuu ku dhashay deegaanka Qaradhi oo hoostaga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. waxa uu wax ku soo bartay kolleejkii Lafoole iyo magaalada Muqdisho. haddaba qaybta koowaad ee wareysigan ayaanu gudageli doonaa, aniga oo ugu horreyn doctorka wax ka weydiiyey xilligii uu dhashay iyo xaaladdu sida ay ahayd. adiga iyo tiimkaaga idaacadda daardheer aadaan ugu faraxsanaa inaan markii ugu horreysay aan idaacadda soo booqdo, arko, bartana. haddii aad iweydiisay nin odaya oo waaye soo noolaa oo soo jiray ilaa 60meeyadii dhashay, maantana alxamdulilah oo cimriga ku sugay alle u ogolaado inuu maaragta weli maaragta adduunyada sii joogo. haddaan ka bilaabo abaarihii, horta waxaan ku dhashay dhulka gobolada dhexe ama galgaduud, degaan ka mida oo la yiraahdo Qaradhi, sidii hooyaday iyo aabahay ii sheegeen. Qaradhi wuxuu u dhexeeyaa degaankaasu degmada Cadaado iyo Godonlabe ayuu u dhexeeyaa, oo 14 kilomitir ayuu degmada Cadaado u jiraa. Godonlabena sidaasoo kale 14 kilomitir, marka bartamahu ku yaalaa. laamiga dheer ayaa mara. maalin jimca xusuusan ma sheegi karo sanadkii, laakiin 67 adiga sanadadaas ayay u dhexaysay dad reemiya oo meeshaas ku nool. runtii waqti adigu markii ilaa 5 jir aan soo gaaray, waxaa jirtay in hooyaday ay soo waday iyo aniga iyo caruur kaloo ila dhalatay, qaarna iga yaryar yihiin, qaarna iga waaweyn yihiin. waxaa soo aadnay oo booqasho u soo aadnay xamar oo ayeyday hooyo dhashay oo ayaa meeshaas ku nooleed. ayaga ayaan soo booqanay. runtiina waxa weeye waxay ku beegneed 69 ama 70 bilowgiisa aan dhaho 4 ilaa waxaan dhihi karaa 4 iyo 5 waa ku sii socda, saasaan isleeyahay. laakiin waa xasuustaa baabuur ayaan ka raacnay magaalada la yiraahdo Godonlabe. wadada laamiga maysan jirin, dhusmareeb oo kale waa marnay. waan xasuustaa ilaa meelaha aan xasuusto Buulo Barde oo wadada ku taalay ilaa aan xamar ka tagnay. maalmaha loo soco jiray iyo habeeno, safarku waa dheeraa. ujeedaduna waxay ahayd inaan ayeeye hooyo dhashay in loo tago oo lasoo booqdo. booqashay ahayd in lasoo booqdo. xilliguna waa iska adkaa oo dhulka miyiga way iska adkaayeen. sidaas darteed ayaan la soo joogno ayay ahayd qorshuhu.
xamar adigoo yaraa tagtay dabcan sidaad noo sheegtay marka ugu horreysay bal waxyaabihii aad ka xusuusatid gelitaanka xamar iyo xaafaddii iyo hay xamar waxaan xasuusan karaa oo maskaxdayda aan ka goyin inaan xamar gaarigeena waday uu baabuurta ka timaada waqooyi oo dhan waxay boosteejo u ahayd meel la yidhaahdo barxadda wardhiigley ama suuqa xoolahana lagu gedi jiray baabuurtana halkaas ayay soo beegsan jirtay halkaas ayaan xamar ka soo galay waa meel hadda la yaqaano oo degmada wardhiigley ee xamar ka mid a suuqa xoolaha horena waa ahaa boosteejo baabuurta waqooyi ay timaado ama ka baxdana way ahayd meeshaas meel aan ka dheerayn oo la yidhaah oo howlwadaag xaafadda la yidhaha ama Tokyo hadda maanta loo yaqaan ayaa ayeeya deganeed meeshaasaan degnay meeshaasaan tagnay muddo ku nooleen xilli kadib markii ay noqotay in hooyo ay dib u noqonayso oo caruurteennii kuwii iga waaweynaa iyo kuwii igu yaryaraaba ay rabto diyaar garowday ayeeye ayaana igu dhigtay oo tiri ninkan anuu ila joogaya ayeeyadii hooyo dhashay ahay halkaas ayay hooyana raalli ku noqotay aniga markaan meeshaas ku haray ayeeyo xamar waa aad u yaraa waxay ahayd barobbiya xilligaas marka kacaanka uu qabsaday waa 69kii Oktoobar kacaanku qabsaday markaas ma xasuusto laakiin waxaan xasuusan karaa in 70kii kacaankii iyo ololihiisii iyo abaabulkiisii iyo mikrofonadiisii inay carrada ka shidnaayeen oo dhagahaas aan ka maqlaayay waxaan xasuusan karaa in ayeeye aan isla soco jirnay oo meelo ay dhihi jirtay waxbarashaan kula raadinaya meelo kuleejooyina oo horey u jiray oo orfana xamar ama kuleejo markaas la aasaasay oo la foole laga aasaasay meesha la foole ilaa haddadaan maanta meeshii kuleejo ah oo jaamacadda la foole kasoo horjeeda kuleejadii la dhihi jiray xarumihii kacaanka meeshaas ayaan markii dambe nasiib u yeeshay in la geeyey doctor cabdulaahi dad badan marka kacaankii xilligiisa aad la koosatay xamar aad joogto waxbay isweydiinayaan oo bal waxaan rabaa dadka dib si aan ugu celino xusuustaadana dib aad ugu celisid sawir noocee aad ka bixin kartaa xamar siday ahayd deegaanka oo aad sheegtay inuu yaraa magaaladoo yareed oo kale iyo waxyaabihii kacaanka iyo wixii kugu cusbaa oo xilligan aad xasuusatay aadaan u mahadsan tahay waxa waaye wax yaabo badan oo aan ka gudbi lahaa ayaan inaan dib u fiiriyo runtii waan ku faraxsanahay su'aal muhiima waaye waxaan xasuusan karaa xamar waa yaraa baabuurtii ka shaqay jirtay xamar taxi ayaa la dhihi jiray ama janta fintiquatro ayaa la dhihi jiray waxaa lagu raaci jiray 6 kumi qofku maantay loo sheegaahe ma fahmi karo laakiin wuxuu garan karaa shilinka Soomaaliya isticmaasho oo ilaa maantadan shilinka la sheego ayaa waxa waaye waa 10 senti ayuu ahaa shilinku marka 6 senti oo kamid ah ayaa baabuurta lagu raaci jiray waxaa jiri jirtay mootada 3 lugaale leeyahay oo midda maanta joogto kala ah ayaa iyaduna xamar ka shaqay jirtay oo 3 kumi lagu raaci jiray marka shilinka 100 shilin ma aha 1,000 shilin iyo 500 ma aha waa 1 shilin waa 1 shilin oo marka 6 macnaha markii 10 loo qaybiyo 6 meel oo kamid 100 shilin waa lacag badan 50 shilin waa lacag badan 20 shilin waa lacag badan 5 shilin waa lacag badan 2 shilin ma aha 1 shilin waa 6 kumi waa halkii shilin oo 4 senti dhiman ayaa taxiga janta fintiquatrada oo gaduudka jaala roosa la dhihi jiray korna jaala ayuu ka ahaa hoosna roosa ayaa ka marsanaa kaas ayaa lagu raaci jiray waxayna aadi jireen boosteejada xamar ugu weyna waxay ahayd meesha la yidhaha ceelgaabta loo yaqaan meeshaasna waxaa laga aadi jiray ansaloti waa laga aadi jiray lambar 4 waa laga aadi jiray waxaa laga aadi jiray oo kale beexaani meelaha caanka ah xaafadda howlwadaag oo kale waxa waaye wadada ka soo degta sayidka waxay ku ekeed meel la yidhaha cali caliyo oo maantadan la yaqaano oo buur ah oo aan inta aan la soo gaarin bakiin ah ayay wadada ku ekeed inta ka shishaysa oo xaafadahan hadda xamar jadiid iyo baar ubax iyo waxay ahaayeen duur bay ahaayeen markaas lama deganeen oo ciyaalka dugsiyada dhigta waxay ka soo gura jireen ulaha ayay macallimiinta uga dari jireen oo antorta iyo la yiraahdo marka duur bay ahayd magaaladana meelihii faras magaalaha u ahaa waxaa ka mid ahaa fiyaad
iyo muxuu ahaa kilomitr zero meesha loo yaqaano hadda iyo ceelgaabta halkaas ilaa lambar 4 ilaa iyo maaragtay aerobortkuna waa dhisnaa lambar 4na ma dhaafsaneen digfeer ayaa dhisnaa oo inta u dhaxaysa lambar 4 iyo dhulkaas tarbuunka iyana ay banaaneed laakiin tarbuunka markaas waa ka yaalo meesha salaana lagu qaadi jiray waxa kale oo aan sheegi karaa oo aad u xiiso leh ayayday markaan la joogo dukaamo noo dhow ayaa jira xaafadaas howlwadaag ama Tokyo waxay ii diri jirtay dukaanka waxay iga diri jirtay sonkortaas waxaa rubaca sonkorta waxaa la gadi jiray 3 kumi iyo taano taanadu waxa waaye kumi kala barkiis waay 10 kumi marka la isku darana waxay noqonaysay shilin bay noqonaysay sida 6 aan u sheegay 10 kumi iyo shilinka waxa u dhaxeeya nus shilin oo ah 5 senti balka 5 senti aan dhihin taanada 5 senti ah laakiin 5 pound camal ayay noqonaysaa lacagta ugu yar waa taanada waa marka kumiya ku xiga kumigu waxa waaye waa 10 senti ayaa kumiga ah taanaduna waa 5 senti markaas 10ka kumi ayaa shilin noqonaya ayayday waxay ii diri jirtay sonkor rubaca sonkorta 3 kumi caleentana markaas taanay ahayd waa intii markaas shaah fiican oo kirli weyna lagu karsado dukaanka noo dhow ayay iga diri jirtay ayay iyo aniga iyo abtiyaal 2 abtiyaashay ayaa isla nooleen meeshaas halkaas ayay ahayd howlwadaag ayay ahayd waa xasuustay marka intaas aan halkaa ku reebno doctor waa maasan tahay waxaan rabay dabcan xamarna sharaxaad fiicanaad ka bixisay oo waayo aragnimo ku filan dadka inay ka maqlaan waxbarashadu waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha ay kamid ahayd koley waad soo hadal qaaday mar dhoweed laakiin faahfaahin maanan ka bixin xaggee waxbarasho ka bilowday horta dugsi qur-aankii ma xamaraad ka dhigatay mise xaggan waad bayareed bal qur-aankii nooga bilow sidoo kale waxbarashada kale maadiga iyo halkii ay kugu suurta gashay waa mahadsan tahay aniga xamar markaan ku leeyahay hooyada ayaa keentay meeshaasaan ku haray waxaa iga sii horeeyey walaalkay oo isku aabay hooyanahay oo curud ku-xigeenkii ahaa oo maantada nool waxaa jiray dugsi quraan oo abtigay hooyaday la dhashay uu hayo oo meel aan naga dheereen ku yaalay dugsigaas asagana la geeyey anigana mararka qaarkood aan sii tegi jiray marmar dhowrana ayaa gacanta ay qaban jirtay oo meelo kuleejooyin iyo meelo ayay ila raadi jirtay sida meeshii la dhihi jiray Fisho Governo oo maanta loo yaqaano xarunta gobolka Banaadir meeshaas waxaa laga qori jiray dadka maaragtay iska tabarta daran oo kuleejooyinka loo rabo runtiina kuleejooyinka dadkooda qoysas fiicladan iyo dad kaleba waa geli jireen oo meel wax laga barto oo dadka lagu edebsiyo ayay ahaayeen oo sida orfana xamar iyo macaahid kale ma jireen marka oo caadi waxaa jirtay macaahido yaryar oo macadu macallimiin iyo waxaa jiray iskool komershaale oo wax lagu bara jiray iyo dugsiyo hoose dhexe iyo sare oo kooban ayaa xamar ka jiray iyo meelaha qaarkood oo dowladii hore ay samaysay ayaa jiray runtii waxbarashadu waa koobneed dadka Soomaaliyeedna waa dad markaas soo kobcayay waxaana in la tilmaamo waxbarashada ugu sarreysa waa dugsiga sare ay ahayd wadanku jaamacad ma lahayn marka laga reebo jaamacaddii Lafoole oo iyadoo 60meeyadii agagaarahaas la sameeyey oo macallimiinta ayaguna ay ka soo bixi jireen laakiin jaamacada kale wadanka ma uusan lahayn waa gartay marka waxaad gashay kollejooyinkaas oo aad ilaa heerkii ku soo gartay waxaan nasiib u yeeshay oo ilaahay ha u naxariista ayayday oo dadkeeda waxbarashada la jecleed oo quraanka la jecleed waxay fadligeeda ilaahay ka ajir iyo xasanaad siiye ay heshay markii ugu horeysay horta waxa ka horeysay in kuleejadii Lafoole oo wiilka ila dhashay oo iga weynaa kuleejadii helay oo Lafoole la geeyey meeshaasna uu maaragtay waxbarasho ka bilaabay asagana nasiibkiisa uu noqday runtii dad maaragtay wuxuu galay markaas la qoraayay
uu la kulmay oo asna abti uu la noolaa uu la joogay meeshaasaa looga daray meeshaasuu waxbarasho ku bilaabay 1970 ayay ahayd bilowgiisii marka waa noo imaan jiray jamcayaashu wuu noo imaan jiray meesha wuxuu noo sheegay inay meel fiican tahay in dadka la qabanayo oo la qoraayo oo maaragtay kuwii kuleejooyinka xamarna meesha laysugu keeni doono ayagana lagu bilaabay dad adigu oo la foole dad lagu bilaabana asaga uu ka mid ahaa oo haddana lasii diyaarinayo meeshaas ayaa aniga ayeeyo nasiib iigu yeelatay in la igeeyo oo layga qoro oo warqado laga qoray gobolka banaadir ayaa dalabkoodii ayaa meesha la geeyey meeshii ayaa anigana laygu daray anoo runtii aad u yar laakiin dad ila mid ah oo ila daa iyo dad qoysaskoodii oo dhan oo gabdho iyo wiilal ayaa kuwa soo guuro meesha joogaba kuwa marka la foole lasoo geliyay dadka Soomaaliyeed dawladda kacanka oo dadka maaragtay iska tabarta daran ilmahoodoo dhan waxaa jira qoys aabihii iyo hooyadii iyo dadkii yaryaraayoo dhan meesha degay meesha saasan ku arka bilow bayna ahayd marka waxbarasho ahaan iyo marka laga hadlo xataa college ahaan deegaan waxay ahayd deegaan nimankii naga soo horreeyay oo walaalkay ka mid ahaa waxbay baranayeen guryaal ay deganaayeen biyay lahayd waxay ahayd xero weyn oo ilaa maantana la foolo ku taalla oo aad aan dhihi karo adigu 1,000 mitir miyaan idhaahdaa ka badan ayaa la weegaaray meeshaas waxa waaye guryo badan ma lahayn laakiin markaasaa dhismuhu ku socday Soomaaliya dawladdii markaas haysatay oo kacaanka runtii aad bay ay isugu taxalluujinaysay in dadka aan waxbarashada awood u heli karin dadka maaragtay tabarta Soomaaliya oo dhan aad u tabar yareed oo dadka Soomaaliyeed wax bara kara ama iska bixi kara waaba iska yaraayeen xaqiiqatan marka la sheego tallaabadaas aad iyo aad ay u qaadeen waxaa jira kuleejooyin kale oo meesha la yiraahdo ceel jaale la dhihi jiray oo degmada marka ayadana laga abaabulay oo markaas ka hor dawladda hore ay abaabushay laakiin tanna ay dad ku sii dartay waxaa jirta kuleejooyin kale oo ay hayeen dadkii dawladda Talyaaniga oo ay Soomaaliya gumaysan jirtay oo dadka maaragtay macin laawayaasha la yiraahdo ama dadka aan tabarta lahayn ayay ilmahooda lagu xarey jiray oo ilmihii soorooyin dad la yiraahdo Talyaaniga oo islaamo waaw ayaa hayn jiray jilib bay ayay ka jirtay baydhabay ka jirtay xamar meelo ka mid ay ka jirtay oo runtii markii dambana waxaa lagu guulaystay in dhammaan xarumahaas oo dhan la foolo la isugu keeno dad ka badan 2,000 ayaa meeshaas waxaa meeshaas marka ku barbaaray oo waxbarashadoodii hore na loogu sii amba qaaday mid cusubna loogu bilaabay dad aan markaas anagu groupka aan ku jirnay 1,500 dhaafsan markii dambana 2,000 gaaray marka la isugu keenay xarumihii wadanka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah meeshaas ayaan waxbarashadii anigu ka bilaabay quraanka halka waxaan aniga oo maaragtay adigu meel hoose ka maray ayaan meeshaan imid quraankiina waa naloo bilaabay waxbarashada caadigaana waa naloo bilaabay nolol cusub ayaana meeshaas aan ka bilaabnay sanadkii 1971 ayaan meeshaas tagay 1971 oo kacankina wuxuu xoogeystay oo wadankii dawladda ay awood yeelatay waa gartay maxaad barateen marka maadooyinka la baranayay iyo culumta af Soomaaligu ma qoreen xilligaas oo dib laga qoray bal nooga sheekay iyo luqadda wax lagu baranay maadooyinka aad baranaysay runtii bilowgii waxbarashadaas waxaa luqadaha wax lagu bara jiray waxay ahaayeen Carabi iyo Ingiriis meelo qaarkoodna Talyaaniga waa lagu bari jiray laakiin anaga Carabiga iyo Ingiriiska dadka ku bilaabay af Soomaaliga isla xilligaas aan ku sheegay mar u dhow ayaaba gudiyo loo saaray waana la abaabulay 1972 af Soomaaliga waa la dejiyay waa la dhammaystiray 1974 waa tii kacaanku uu qaatay in ololihii afbarashada miyi iyo magaalaba inta waxbarashadii oo dhan iskooladii la xiray oo jaamacadii la xiray waa tii la aaday marka aniga markaas waxbarashada hore la igama bilaabay laakiin quraanka la ii bilaabay markii sanad iyo 2 camal la waday ayaa aniga 1974 la ii bilaabay aniga waxbarashada iskoolka caadiga ah waxaana jirta policy dawladda Soomaaliya qaadatay bacdama ololihii
dadkii loo diray 2 sano lagu maqnaa marka dib u dhac ay ku yimid oo ay waxbarashadoodii ayaa mar dambe waxa la ogolaaday in waxbarashadii meesha ciyaaladu fasaxa qaada jireen 6 bilood camal 6 biloodna wax la dhigi jiray in consecutive laga dhigo oo khaasatan kuleejadeena oo sanadkoo dhan la dhigto sanadkiina ilaa 2 fasal la qaato markaasna 6 sano camal ama 8kii looga baxo muddo yar oo kooban secondary looga baxo la isku celceliyo ayaa la sameeyay sidaas darteed ayaan anigu plus minus 1980kii aan labadaasba ku dhamaystay guud ahaan dugsiga sare dugsigii hoose dhexe sare bolisigaasna dowladii hore ayaa dejisay waxay dejisay oo jiri qofkii yaqaana jire waxbarasho dadban iyo waxbarasho toosa waxbarashada tooska waxbarasho waqtigeedu dheer yahay oo dadka loo sii wadaayo iyo waxbarasho la soo gaabiyey iyo waxbarasho dadka waaweyn indirect ama waxbarasho dadban ah oo 3 sano kale dadka waaweyn ama dadka shaqaalaha loogu soo koobi jiray waxbarashadii kale oo markaas ilaa dugsi hoose iyo dhexaba inta loo dhameeyo haddana secondary-ga halkaas ka sii fuuli jiray sida caadiga 12 sano ayay berigii hore ahayd dowladda booliskaas qaadatay waxay samaysay wax la yiraahdo waxbarasho degdeg ah ayay samaysay oo dadka shaqaalaha iyo ciidamada iyo dadka af Soomaaliga loo dhigay waxyaabahaas oo dhan markaasna shahaado la siinaa oo kula qabsan karo dugsigii sare laakiin iska caadi u ahaa waxa jiray waxbarasho kale oo dugsiyada sare la siman oo macadiye la yiraahdo oo caafimaadka xanaanada xoolaha badda muxuu ahaa culumta badda lagu bari jiray culumta baalkii beeraha waa ku jireen waa lagu bari jiray xisaabaadka lagu bari jiray iyo qaar kaloo badan oo waxbarashada tooska ka duwan oo gaar loo baro oo dugsiyada sare la siman ama macadiyo markii dugsi sare laga baxo la dhiganayo intaasba waa jirtay shahaado dibloma lagu qaadan jiray waana waxyaabaha dawladdaas ay aad iyo aad ugu dadaashay oo dhihi kara maanta Soomaaliya waa u baahan tahay sababtoo ah waxa way waxbarasho farsamo ku la xiriirto qofku markuu farsamada gacanta kala ku jirtay markuu hore wax ka barto wada ka shaqaysanay korontadii oo kala la baraya farsamada gacanta makaaniga baabuurta la baraya balambamka waxa la yiraahdo ayaa la baraya tubooyinka iyo guryaha la galiyo iyo waxyaabahaas xirfadahaas la baraya kuwaas xanaanada xoolaha iyo caafimaadka xirfad dibloma lagu qaadanayo oo markiiba lagu shaqo galay waana waxyaabaha aad iyo aad maanta uga dhiman Soomaaliya oo mar walba la yiraahdo maaragtay taas ayaan marka la gali jiray aniga waxaan nasiib u yeeshay inaan galo macadkii sare oo caafimaadka oo ku yaala Digfeer gadaashiisa oo Muqdisho Nursing Institute la dhihi jiray Muqdisho Medical College la dhihi jiray oo marna 2 sano looga soo bixi jiray mar dambana 3 sano mar dambana 4 sano laga sii dhigay laakiin 2 sano markuu ahaa iyo 3 sano markuu ahaa waxbarasho aad tayo u lahayd oo aan fasax laga qaadan oo sanadkoo dhan la dhiganayo practicada iyo theory-gana ay xiyaaleen aad iyo marka waxaad iiga sheekaysaa Dr. Cabdullaahi 80kii dhameystay dabcan waxaan isleeyahay dufcadii ugu horeeyay kamid ahayd ka qalin jabisay 80kii waa markii aan soo galay waxaan ka hadlayaa dugsiga sare oo la foole hadii intaan jaamaca caafimaadkan aanan u kali la foole 80kii ka soo baxay dufcadii ugu horeeyay kamid ahayd olihii waa la iga horeeyay 74 dad ka qalin jabiyay oo hore iskuulada u soo dhiganay meelaha dibadaha loo dhigay oo jaamacadaha gudaha ma jirin markaas aad iyo aad u fahmay olihii ma ka qayb ahayd adigu dadkii loo loo xulayay olihii gurubyada naga horeeyaa galay anaga waa aadna waa u yaraan kuleeja la foolana ma aysan laga bixin laakiin iskoolada kale oo Soomaaliya oo dhan laga baxay anaga xanaano gaar nolosheena muxuu ahaa chief cunto wax walba dawladda qabtay waa hagaag
hagaag dhegeystayaal toddobaadkan intaas ayaan jeclahay inaan ku koobo qeybta koobaad ee wareysiga barnaamijka waayaha nolosha aanu kula yeelanay doctor cabdulaahi warsame abtidoon waayajoog muddo kasoo shaqeeya arrimaha caafimaadka hadda waa agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka ee galmudug. barnaamijka waayaha nolosha waxaa soo saara halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdahari garaad ah. cabdifataax maxamed axmed ayaa ii farsameynaya. intaynu ku kulmi doono qeybta xigta ee wareysiga doctor cabdulaahi waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.